waatay sidii wararkaad ku daawanayseen telefishinka saab xisbiyada wadaniyo cud maanta waxay ku heshiiyeen oo ay ku dhawaaqeen inay soo magacaabi doonaan labadii xubnood ee guddiga doorashooyinka uga qaybgeli lahaa. waxaa muuqata in arrinkaas uu soo afmeerayo khilaafkii dhinaca doorashooyinka ee u dhexeeyey xisbiyada mucaaridka iyo xukuumadda Soomaaliland madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee ku aadanaa magacaabista guddiga doorashooyinka. falaqaynta warka waxaa marti noogu ah maanta ama caawa oo ku faraxsanahay wariyaha weyn Axmed Siciid Cige oo arwacada muddo 20 sanana ka soo shaqeynay laanta Soomaaliga BBC-da horna ugu soo shaqeeyay TV-ga Soomaaliya ee dawladii hore Soomaaliya. Axmed sidoo kale waa falanqeeyay si weyn ula socda arrimaha siyaasadda dhaqanka iyo dhaqaalaha geeska Afrika ee Saab TV uu ku maadsiin ugu soo booqdo oo la falanqeeyo howlaha dhinaca doorashooyinka. Axmed ugu horeen sidee baad u aragtaa maanta go'aanka ka soo baxay xisbiyada wadaniyo cud? xamse aad baad u mahadsan tahay arrintan go'aankan maanta wada jirka ay u gaareen labada xisbi ee mucaaridka ee xisbiga mucaaridka ee wadani gudoomiyihiisa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Ciro iyo xisbiga mucaaridka oo cidi gudoomiyihiisa Injineer Faysal Cali Waraabe run ahaantii dadku aad bay ugu farxeen oo muddo dheer ayaa imika isjiidjiidad uu ka jiray sidii loo qaban lahaa doorashada baarlamaanka oo aad ogtahay doorashadan baarlamaanku imika marka loo eego 5 sano la doortay 2005 bishii September bay ahayd haddana waxaynu joognaa waa 2019 weeyaan marka waxa weeyaan waxa ay dhaaftay marka la eego 2 jeer bay dhaaftay oo 5 sanadood in doorashada la qabto waxa kale oo ku sidkan doorashadan kale iyaduna golayaasha deegaanka oo iyaguna waqtigoodu u dhamaaday ayaa jirta oo ay tahay in la qabto inkastoo 2 jeer la qabtay intii Soomaaliland ay jirtay golayaasha deegaanka baarlamaanka laakiin markaas oo kale la qabtay ay lagu soo doortay cod dadweynuhu ay soo doortaan marka dadweynuhu aad bay ugu faraxsan yihiin in markaasi bal laga gudbo isjiidjiidkii iyo isku eedayntii markaasi oo guddigii doorashada ee cusub ay la wareegi doona iyagu xilka doorashada iyaga waqtigoodu uu dhamaado guddigaasi cusub dabeetana ay la wareegaan oo dabeetana doorashadaasi ay qabanqaabiyaan oo taasina markaasi sida warqadda ay soo saareen labada xisbi ee mucaaridkii maanta heshiiskoodana ay ka muuqato in ay markii horeba madaxweynahana ay ka wada hadleen waraaqna uu soo qoray marka imika in 7 xubnood marka 2 xubnood ee ay 7 xubnood ka koobnaanaya guddiga doorashooyinka awalba caadiga ahayd in labada xubnood ee xubinta ay soo magacaabayaan labada xisbi ee u cidiyo wadani ay ku heshiiyeen in ay soo magacaabaan. Axmed haddii laga heshiiyey xubnihii guddiga doorashooyinka Soomaaliland arrinta saami qaybsiga Axmed way taagan tahay arrintaasi maslada caqabad hor leh ku noqon doontaa in Soomaaliland doorashooyin ka qabsoomaan. warwarkaasi waa ay muujiyeen labada xisbi ee mucaaridka haddaad eegto in warqadda ay soo saareen waxay yiraahdeen iyadoo mas'uuliyadda qabsoomidda doorashooyinku uu leeyahay madaxweynaha Soomaaliland markaasi kolba xukumaya haddana waxa ay tahay labada xisbi ee mucaaridka waxa waajib ku ah in ay kala shaqeeyaan sidii looga bixi lahaa caqabadaha kale ee markaasi ku horgudban doorashooyinka ee horyaale isku sidkan ee baarlamaanka iyo deegaanada waabay ku cadeeyeen oo saasay ku qoreen warqadooda labada xisbi ee mucaaridkii tan saami qaybsiguna waa arrimaha bariyaha ugu dambeeyay aad iyo aad sidii saami qaybsiga looga heshiin lahaa gobolada oo goboladu baarlamaanka waxa ay ku leeyihiin qoondooyin lagu heshiiyay markii ugu horeysay ee baarlamaanka 2005 la qabanayay marka xeerkaas waxa lagu qoray barigaasi doorashadaas oo kaliya ayaa lagu galayaa laakiin ilaa intaasi ka soo wareegtay 15 sanadood markay ku dhow imaka lama qaban mas'uuliyadaasina waa mas'uuliyad la wada leeyahay oo mucaarid iyo muxaafid bay wada leeyihiin oo marka ay soo dhawaato doorashadu waa dhaqan ay tahay Soomaaliland inay ka waantoodo oo marka ay soo dhawaato doorashadu unba isku jiqsi yaa la isticmaalaya oo marka hore ee baarlamaanka la doorto oo kale marka baarlamaanka la doorto insha Allah ayay tahay markaasi in la bilaabo wixii caqabadaha ku gudban haddana xeerkii doorashooyinku uu hor yaalaa in baarlamaanka oo sidii saami qaybsigaas ay kamid tahay oo ay kamid tahay kootada haweenku oo ay kamid tahay golayaasha deegaanka wax laga yeelayo waad ogtay golayaasha deegaanka waqtigooda uu dhamaaday haddana loomana kordhin waanay fadhiyaan. Axmed mucaaridka Soomaaliland ma xisbiyada mucaaridka Soomaaliland waxay markasta ay sheegayaan in hawsha dhinaca saami qaybsigu uu madaxweynaha u taalo oo ariniga khusay aan ahayn suurtagal ma tahay in madaxweynuhu ku qanciyo
beelaha ama deegaanada gobolada Somaliland ee ka cabanayna saami qaybsiga in doorashadii la qabto iyadoo saamiga laga heshiin madaxweynuhu hortayda waa madaxii guud ee qaranka waa astaantii qaranka oo taasi uu leeyahay marka dhinaca la eego oo ay tahay in uu ku qanciyo dadkii markaa uu la tashado oo sida laakiin haddii aanay xisbiyadii aanay laga wada hawlgelin oo aan gobolladii oo dhami ka hawlgelin oo masalaadiintii oo aqoon-yahankii oo madax dhaqameedkii oo golayaashii kale oo beelnimo la isticmaalayo oo qabiil la isticmaalayo oo la odhanayo qabiil hebel intaasaa ka maqan waad aragtay waxaa ka socda anigoo aada uga xun waxaa ka socda aad arkaysa imika tviyada iyo baraha bulshada iyo wax saxaafad lagu tilmaami karo ma aha qofku markuu hadlaayo inuu iska hadlo una wuxuu doono uu ku hadlo hadduu doono deelqaafiya ka dhacaan oo aflagaadooyin ay ka dhacaan ma aha saxaafadda lafteeda waxa loo baahan yahay marka ay intaasoo qof halka ay soo tubaan waxay ku hadlaan maaha qof waraysta oo challenge gareeya oo sidan aad u dhigtay taasaa laga leeyahay maxaad odhanaysaa in la yidhahdo horta fiican marka taa saami qaybsigu waa arrin ku taagan Somaliland waana caqabadaha hor yaala taasina waa looga baahayay madaxweynuhu ha yeesho mas'uuliyadda koowaad laakiin waa mid u wada taala Somaliland oo dhan ilaa la helo tirakoob saxana sidaas baa la isu jiidanaya oo ma aha oo kaliya masalan gobolada oo darkayso gobollo badan baa la anagana intaasaa naga maqan markuu mid hadlo gobolka la leeyahay intaasaa naga maqan laakiin gobolada qaarkood waa loo garaabi karaa oo way ka maqan yihiin saamiyo أحمد مدبر ضمن صحافة كل حتى الصومالي خاصة لبعضن كي سنة وجودن بيه وحد وريك هذا BBC ده هرجيس هذا كل صور مجرتي أنت حسوسته أفر مدحونا ولا صار شخصي لين عورك برنامج كذا الصومالي وحلو أمانة دور شوي إنك قبطي لكن هذا نوع حاجة اللي بعتوه إنه مدكوردنتي محل ثلاثة وحصل مدكوردنتاسي محل حلا hortay intii Somaliland waa runtii madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal oo la soo shaqeeyay waqtigiisa isaga ma yahayn doorashadan xisbiyada badan laakiin waa loo kordhiyay 2 jeer oo dagaalay baa jiray laakiin isaga waxa lagu xusuustaa wuxuu sameeyay distorkii oo afti loo qaaday May 31keedii boqolkiiba 97 markaas lagu ansixiyay waad ogay dadweynaha Somaliland shuruucdanna imaka xeerarkan oo dhan gidi waqtigiisa la sameeyay madaxweyne daahir yaale kaahin isaguna wuu qabtay 4 doorasho qabtay 2 madaxtooyo mid golayaasha deegaanka ah iyo tii baarlamaanka imaka teedii kale ay 10 sano dhaaftay imaka ay muddo dhaaftay aad iyo aad inta badan la isku haystay la isku mari waayay nasiib wanaag maanta ay soo muuqato ifafaalaheedu wali ifafaalahay baynu haynaa laakiin caqabadaha sida ku horgudban madaxweyne Axmed Siilaanyo isaguna waxa uu qabtay doorashadii golaha deegaanka iyo tii madaxtooyada ee madaxweyne Muuse Biixi uu ku fadhiyo waa loo kordhiyay daahir yaale 2 jeer Axmed Siilaanyo isna waa loo kordhiyay 2 jeer saan filayo Muuse Biixina waxaynu filanaa ina uu ku magac yeesho oo ku magac qaato madaxweynihii aan loo kordhinay mar kastaba doorashada waqtigeedii ku qabta waxaana ay tahay oo Somaliland ay ku iibsamaysaa oo dimuqraadiyadeeda waxa la yiraahdaa waa badweyn jasiirad badweyn ku dhex taala kali talisnimo ah ayaa la yiraahdaa Somaliland oo caalamka ay magac kaga heshay oo lagu amaano Afrika waa doctor dictatoriyada ku badan oo xukunka dimuqraadiga ku yaray Ethiopia imaka inta inoo jirta wadiga oga waxa ka dhacay intii yaray imaka Abiy Ahmed uu la wareegay marka haddii aan la ilaalin waqtiga ay ku qabsoomayso doorasho kastaaba 5 sano marka ay dhaafto in la ogaado oo qofkii kale soo sharaxayo qofkii dabca ka haya kii kale oo halkaas ka baxayo kuma iibsamayso waad aragtaa golaha guurtidu 22 sanadood bay fadhiyaan 1997 ugu dambeysay waqti la soo bedelo hab qabaylaha lagu soo doorto dhaxal bay ku yimaadaan imaka oo markuu qof dhinto inankiisa qof walba la keenaya taasina ma cuntamayso waad ogtay golaha wakiilada wadiga ogoyaduna 10 sano ay dhaafeen golayaashii deegaanka waa fadhiyaan marka tahay in wax laga qabto taa weeye aan waxaan xal u arkaa in guddiga doorashooyinka la xoojiyo oo aan guddiga doorashooyinka la xusuusan markay doorasho soo dhawaatay ee ay tahay in guddiga doorashooyinka 7 xubnood lagu laro dad aqoon leh oo ay fadhiyaan oo mar walba shuruucda ay dhameeyaan oo golayaasha laga ansixiyo oo diiwaangelintii ay wadaan mar kasta oo dad markay timaado iyaga wax kasta ay u diyaar yihiin ay doorashadii ay qabtaan oo qof walba leeyahay had burhanak aad u maatay kaas waxa wariyaha caanka ee rugcadaaga Axmed Saciid Cige oo xubinta falaqeynta wararka ee noogu diyaaraha aad u Axmed u maatsan yahay aan ku wareejiyo wararka kale SABC TV